mararka qaarkood adduunkan waxaas maskaxda ibnaadamsi u fikirta iyada waxaa weligaa filanaynin waxaa arkay maskaxyaal suubinayaan haddana waxaa laga yaabaa maskax iyadoo fadhiso waxaan ma suubin kartee maxaa ka halaysan tolo waas mararka qaarkood waa la yaabay sidee dadka u fikirayaan waxaas waxaan maxkuum yaa mise filnyaasha leh wixii ka arki jira waas marmar iyadoo noloshii runta ahayd marka waxaana laga yaabaa qofkaas intii oo maskaxdiisii ka tahay mise maxaa ka qaldanaa dadka aday marmarka qaarkood subscribe halii saaro subscribe haddii ii saartid maxaa ka halaaway walaalkee iyo walaashay رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود دوادي أصحاب زيتين ملفي عنها أنا كوافي عنها على كان وجدين وعوض وعلى علامة سنة وحال وجرا ويجي أو حرية كجرنا مرك ما شاء الله زيتين سود دواد هدي وعسبتين بفضل سبسكرايب إيسارة channel kan like ta laga buuxiyo maxaa la suubinayo hadii aragtid fadlan like ii saar akeeshid qisayaash iyo mucjizayaash adduunka ka dhacaan oo saas loo sheegin badana aan ka sheekeyna qisa run iigu imaaw ani hadii jeceshahay subscribe ka ila moodin qisayaashaas aan marka qisadeena noo bilaabato qisada waxa waay gabar Bobby Jones oo America waadan oo gobol yariiska oo Merville ay degantahay gabdhaha ugu fiican waa ugu firfircoon waayo ugu maskiinsan afkeeda dad soo gaareenin iskoolka waxay ahayd gabdhaha ugu fiican iskoolka ahaan marka gabartii waxaa aroosay nin oo la dhahay Said ninkaas yeetan waxay isku kasi jireen iskoolka high school sweethearts ahaayeen high school isku barteen marka waxay is arooseen sanadka markuu ahay 2000 is arooseen marka waxay ka shaqeysan jireen meel oo xayawaanka lagu xanaaneeyo sida eeyaha iyo fardaha iyo lagu xanaaneyn jiray meesha ay ka shaqeynayaan iyaga lahayn marka 2004 markay ahayd uure lahayd Mary Jones markaaseti iyadoo uur leh naagay waxay iskala xiriireen email oo rabtay intay xayawaanka gadato waliba rabtay intay ka gadato markii iskala xiriireen naagtii iyadoo isku sheeka baxday ilaa naagta kale iyadan uur lahayd marka uurkooda ugu horeeyay ahayd labadaba marka uurkooda ka sheekeysan jireen xayawaankan waa isla jeclaan waa iskala sheekeysan jireen sheekadooda isku babaxday markii dambe waxay dhahday waxaan rabaa intii eegaaga deesay kuugu imaan karaa markaas waxay dhahday adreeskeeda siise gurigay waa igu imaan kartaa dhahday marka maalmaha ka mid ah iyadoo uur leh oo 8 bil uur ah gabartii Mary Jones markaas hooyadeeda guriga u imaatay hooyadeed markii guriga ugu imaatay ee soo gashay waxay aragtay gabarteeda oo dhiig dhex dabaalanayso markii naxda maxaa waay booliistii imaadeen waa la qaaday dan xaafadeed degan yihiin xaafad yariis waay hal isbitaal lay leedahay iyo hal maqaayad restaurant hal xabe bas ku yaasho dadka ku nool dhan waxaa la dhahay 250 qof leeyahay qof kasta marka waa is ogyahay xaafad dhuusadii la dhuuso waa la maqla wax qarsan male xaafad wax kasta waa la ogyahay marka gabartii markay dhimatay oo isbitaalka la geeyay way dhimatay la dhahay markaasii booliistii waxay bilaabeen raadis waxaa markii la raadiyay waxaa la ogaaday guriga qofka ugu dambeeyay intoo baabuur oo nooc oo magac ku sheegeen oo wate markaasii waa la baafiyay waxaa la baabuurka noocaas qofkii ka saay booliista la soo xiriiro markii la dhahay ilaa wax ma reebin ma ogtahay waa la baare wax dhan cadeen waa laga waayay waxa la ila harka timo jaale marka timo jaale qof lagu qabsana waa la kasi waayay marka
booliisti markay saas dhaheen naagaa wacde waxay dhahday naaga isla xiriiri jiray ayaamahaan oo maalintaasna u balansaneed oo magaceeda la dhahay Lisa marka taas lay ka soo raadiyay taas umaleyn baabuurka noocan iidaa wadato bas booliisti hadalkii saas naagti dhahday ee ku baxeen guriga Lisa adreeskeeda si ay ku tageen Liisadii markay tageen guriga garaaceen ganjeelkii waxaa ka furtay Liisadii oo cunug yar haysato cunugina hindhaha wax yar calaamado ka leeyahay qof oo jug gaarta camal oo sakiin sarta camal ade sariin uu ka leeyahay hindhihi gabar cunug yar ee wadataa markaas waa la wareystay waxa la cunugtan yaa ku dhalay anaa dhalay dhahday cunugteeda anaa dhalay intee ku dhashay isbitaal cadeenkeena la waxay dhahdan isbitaal ku dhalinay umulisa iga umulisiisay ninkeeda meesha joogay naagtan waxay sheego surumiyaal ma ogiyo ani ma joogin laakiin iyada waxa la ogahay intee isbitaal nacban tahay oo isbitaal dhakhtaryaashii waxaas ay nacban tahay marka isbitaal waligeeda bay dhigi jirtaan isbitaal ku dhalay waa nacbanahay marka intaas ogahay marka cunugaana ma ogi iyada waxay dhad gurigan ku dhalay gabar ahayd Abigail u baxsadeen markaas booliisti waa dhadhamin waan sheekadaas markaas iyada gees ula baxday waxay dhahay aniga runtan sheegay ninkii ka soo leexdo cunuga ani guriga ku dhalay ibadina waa la orday waxa ku soo riday wabiga dhahad mugtay markaas sheekada waa fahmay wax macquul ah ma aanay dhaheen way wateen waxay dhaheen waa ka shakina waxa kula tagayna booliista intii oo war dhinac u baxaayay waa la wada meesh booliista la geeyay markii oo la isku soo kuusme oo la wareystay booliista qolaa la galaa qofka waa la wareysna mugtay markii la wareystay gabartii way qiratay intee gabartii dishay gabarta layma dilinay cunugii caloosheeda ku jiran anaa ka soo baxsaday dhad cunugtii waata waxay dhahday waxaan uu soo baxsado waxa labada video waxa fiirsada lagu la qaliinka qaliinku ku saabsanaan fiirsaday labada video markii fiirsaday mindidii oo jikada yaashay soo qaaday cunugan waa kala soo baxay marka cunugteeda waata iidan anaa dilay markay qiratay cunugtii waxaa la soo siiyay aabihii sayidkii oo iyada naagta dhimata qabi jiraa la siiyay cunugtooda markaas iidana maxkamada loo balamiyay marka maxkamadii looyarey qabsatay looyarkii u dooday wuxuu dhahay gabartan taariikhdeeda ku sheekayna mugtatan oo dadka disha Lisa la dhahay wuxuu dhahay gabartan maskax ahaan ma fadhiso depression ay qabtaa daaway ku socotaa markay yareed waxay ka dhalatay hooyo oo daroogiste iyo aabo oo guriga ka maqan oo wuxuu ahay military oo ahay ma joogin guriga hooyadii kaligeeda soo korisay hooyadii marka ninay aroostay step father adeerkeedii adeer uu noqon ama ninkii hooyada qabo marka ninay aroostay marka ninkii ay aroostan gabartan wuu dhibi jiray wax kasta ku suubin jiray xataa oo xoog uu la seexdo camal oo ku rafaadsan jiray hooyadeed markay u sheegtana hooye ninkaas aanu yeelooya adeerkeen nin fiican ma marka saanu yeelaa markay dhahdo waryaa adaa idab daran adaa istusus adaa isku sharxaysid ay dhihi jirtay markay hooyaday saas idhaahdo wax igaga xumaay ma lehe dhahday nolosheeda waqti ugu xumaay waqtigaas ahayd dhahday markaas gabartan kasto maskaxdeeda caadi ma ahan depression ay qabtay marka haddana iyadoo yar oo 16 jir ah nin lagu daray ninkaas wax loo ahaa ninka adeerkeeda dhalay adeerkeeda oo aabaheeda la dhashtay ma ahan adeerkii oo hooyada qabay wiilka oo dhalay la isku daray iyada markii la isku daray isla markii ilmahay fatootisay 4 cunug iska daba dhashay marka cunugii shanaad markay dhaleysay waxa la dhahay cunugii way ku dhibtootay premature cunugii oo weynaanay dhashay marka waxa la dhahay adiga dhalmada ku fiicna iska jooji markaas iyadoo diidan ninkeedii hooyadeeda waxay dhaheen naftaada ka weyne iska jooji hadii lagu dhaho iska dhaaf waxaa laga soo xiraa la dhahay tubada cunug kale ma dhaleynin gabartan ilme zaaid u jecleed markaas waxay dhahday ninkeyga waa iska soo furay cunug ilaa ma dhalaayay
lagu maray horta waxay dhahday iyadoo uur laheena waxay dhahaysa uuraan leeyahay ninkeeda waa ka saamo wahay se uur ku leedahay tubadii waaba lagaa xiray oo dhihi jiro markaas markii dambe ninkaas way kala tageen koo kale aroostay kii kale marka beena u sheegtay iyadoo uur lahayn jiro waxaa jirtaa gabdhaha iyaga le maskaxiyan iska dhaadhicinaa iyagoo uur lahayn uuraa leeyahay dhahay oo rurun camalba loo maleynayo marka jiradii qabtay iyada uurkaa jeclahay dhahday markii uur qaada leh waxaa dareemay dhahda naxariis intii oo la ii koolkoolinay intii uurka leeyahay naxariis ii koolkoolisaa dareemay marka saasaa u jeclahay uurka marka uur aan leeyahay dhehaysa gabartaaneti isbaranayinba uur ma lehena beenay ka eed ninka hadda soo aroosan ma ogtahay intii oo iyada uur qaadayn oo tubada ka xiranta wuu aaminsanay marka intiiba been lay u sheegaysa uuraa leeyahay oo been lay ku socotay marka uurna ma leheen marka waxay dhahday uurka waxaa uu jeclahay special qataraal iiga dhigaa intii uurka leeyahay marka saasaa uurkan been ugu sheega dhahda looyarkii u dooda naagta maskaxdeeda ma fadhiso saasay gabarta ku dishay iyo cunugii oo horta arxan la-aanta ibni aadamka meeshay gaari karta arag cunug calool ku jira mindi intii ku sartid aala baxdid gacan adeeg moo gacan adeeg ibni aadamka meesha gaari karaa ee ku tusay marka si loo dooday keeskaas wuxuu qaatay 10 sano camal looyarada iyadana maxkamadda waxay iskaga jirta waa xirneed mala xukumin iyaga marka looyarada waxay ugu doodayeen ha noolaatee xabsi daa'in ha laga dhigo xataa waxaa isku qabsadeen al oo xukunka lahay oo dadku xukumay oo maxkamadda dhexda iyaga isku qabsada meelo qoraal loo sii gudbiyaa lahay keeskeeda marka sidii loo sugay maalintii ugu dambeysay oo go'aanka laga gaaray waxaa meesha joogaa lahay seedkii oo gabartii la dilay ninkeeda hooyadeedan way joogtay marka meesha la wada joogay gabartaanita marka waxaa lagu xukumay dil toogasho gabartii waa la wareystay marka waxaa la hayay marka maxaa dareemaysaa maanta dil toogasho lagu xukumay waxay dhahday no comment waxba u maleeyno sabjixin jix malahan qofaad dishay cunuga caloosh kala soo bixisay oo idinoo dishay iyada jixin jix dhan male adaa lagu dilaa xataa markii la isbedel male maxaa sheegi laheedaa la waxaan sheegay male dhahda markaas iyada waa la sii waday dadkii kalena iska soo baxeen maxkamadda ka soo baxeen dadkii oo gabartii la dilay ka dhashteen wax ma dhihin guryahooda iska kala aadeen marka qisada meeshay noogu dhamaatay waxaa ka baranay ibni aadamka marka wax haleynayaan markasta ma dhihi karno maxay wax u haleeyeen waxaa fiican intii oo sababtay u haleeyeen fiirin qof oo maskaxdiis fiican tahay oo sida lagu dhalay oo caadi wax ka haleysaneen gacan adeegaas ma qabo marka wixii oo iyada intay dad disha caadi aaga dhiga wixii iyada lasoo yeelay ka badnaa inkastoo qalad lagu saxeenino anisaana yeela soconaynin laakiin marmar waa dareemi kartaa ma qofka dhibka ku jiray dhib kale saas dhan dhib muu arkaya marka intaasaa kusoo gabagabeena haddii ka hesheen qisayaasha noocan camal haddii la jecel yahay waa noo soo badina insha allah like-tiinan ka fahmaa commentan ii soo qora insha allah subscribe-kana ha ii iloobina waanin jecelnahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu